Here are the facts that many outlets have shamefully and intentionally failed to report until President Trump. waxay soo taraya kacdoon xoogan oo maalmahan baraha bulshada si xawliya u haystay oo ka dhashay dil xaq darro ah oo maalmihii la soo dhaafay loo geystay inan qurux badneed oo 23 jir ah oo lagu magacaabo Irana ninka dilkan geystay oo imika la hayo ayaa sida la xaqiijiyay leh taariikh dheer oo dambi hase yeeshee arrinta lagu cambaariyay ciidamada ammaanka gobolka North Carolina ee Mareykanka ayaa ah in ninka intaas oo jeer dambiyada geystay aanay ahayn inuu dadka soo dhex galo muuqaalo ay qaadeen kamaradaha ammaanka oo la helay ayaa muujinaya in Irana Saratuska oo ah gabadh Ukrainian ah oo kamid ah dadkii ka soo qaxay Ukraine ee Mareykanka magangeliyo doonka ku yimid oo soo koraysa tareen kadib markay soo dhameysatay shiftigii shaqo ay ku lahayd maqaayad ay ka shaqeyso oo bisada samaysa kursiga ay fadhido kursiga ka dambeeya waxa fadhiya nin 34 jir ah oo lagu magacaabo DeCarlo Brown waxa sida laga arkayo muuqaalka uu jabada kala soo baxaya toorida jeebka lagu qaato waxaanu si lama filaanay intuu markaliya kaco tooridii uu gelinaya gabadha dhimatay ee Irana weerarka kadib DeCarlo wuxuu ayar iskaga dhaqaaqay meeshii Irani naxdin awgeed markii hore may dareemin inuu dhaawac xun soo gaadhay laakiin dhowr ilbiriqsi kadib waxa la arkayaa inay dareentay oo isqabatay cunaha waxay u dhacaysaa dhanka bidix sidaas aanay naftu ayar uga baxaysaa It's surreal that this waxay ahayd dhacdo kadisa oo la rumaysan kareyn oo badheer u dhacday of an act and when you see marka aad aragto muuqaalka waxa maskaxdaada ku soo dhacaya in qof kasto oo inaga mid ah oo tareenka isticmaalay ay dhacdadan oo kale ku dhacday dhanka kale falkan naxdinta leh waxa arkay madaxweyne Trump waxaan uga falceliyay sidan A beautiful young girl laga gabadha da'da yar ee quruxda badan never had problems in life weligeed nolosheeda ma arag dhibaato with a mustaqbal wacan ayay ku lahayd waddanka country. haddana maanta way dhimatay sheekadani waxay markii ugu horeysay ka soo bilaabantay warbaahinta maxalliga ah ee magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina kadib waxay ku faaftay baraha bulshada waxaana hadda gaadhay aqalka cad waxay dad badan oo khubaraahi leeyihiin si degdeg cadaalad ah loo horgeeyo dambiilaha intaanay bombooninta lagu wado arrintan imika aanay sii badan arrintuna aanay isku bedelin dagaal sokeeyo oo u dhaxeeya dadka madow iyo dadka cad Brown waxa hore loo xiray 14 jeer waxaanu xabsiga ku soo qaatay 5 sano kadib markay ku cadaatay dhac uu geystay isagoo hubsita hooyadiina waxay sheegtay inuu qabo xanuunka waalida Irani waxay iyadii familkeedu kamid ahaayeen dadkii ka soo qaxay dagaalkii Ukraine ka qarxay 2022 waxay jecleed xawayaanaadka waxaanay arrinta darteed uga shaqeyn jirtay maqaayad pizza si ay lacagta college isaga bixiso oo ay noqoto dhakhtarad xawayaan golaha deegaanka magaalada Charlotte ayaa hadda siday sheegeen sii kordhinaya nidaamka ammaanka tareenada magaalada dhexmara ee loo yaqaan Late Rail kadib dhacdada murugada la dhacday subscribe si aad u hesho muuqaalada dambe